haweeney cuntada ka caagan muddo ku siman 50 sanadood intaan u gudagelin sheekadan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad ma soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsan. haweeney 75 jir ah oo u dhalatay dalka Vietnam ayaa sheegtay in wax cunno aysan afkeeda gelinin muddo ku siman 50 sanadood waxa ayse muddadaasi ku nooleed biyo ay cabto ama sharaabka. inkastoo haweeneydan da'da ah muuqaal ahaan ay tahay mid aad u qurux badan haddana waxa ay sheegtay in cunno aysan afkeeda gelin muddo ku siman nus qarni. sanadkii 1963 ayay soo bilowday in ay ka soonto cuntada oo dhan. iyada iyo saaxiibadeeda oo ku guda jira howlgal gurmad u fidin ah oo loo sameynayay askar dhaawac ah ayaa waxa haweeneydan ku dhacay gumac. kadibna waa ay miir daboolantay iyadoo xaaladaasi ku jirtay muddo aad u badan. tani markaasi xaaladeeda sidii hore maysan ahayn oo saaxiibadeeda ayaa biyo ku qulaamin jiray si ay u noolaato haweeneyda. in yar kadib dhacdadaasi saaxiibadeeda iyo xigtadeeda ayaa haweeneydan ku qasbay in ay cunnada isku daydo oo ay wax cunto, laakiin waxa ay cuni jirtay qudaarta oo kaliya. muddo kadib sanadkii 1970 waxay dib ugu laabatay wadadii hore ee ahayd in ay ku noolaato biyo kaliya. hadda waxaa finjeerkeeda lagu arkayaa ama loogu tagayaa haweeneydan caagada biyo ah oo kala duwan. haweeneydan waqtigii ay ku guda jirtay naas nuujinta caruurteeda maadaama aysan cuneynin cunno nafaqo leh waxa ay haweenka kale ka codsan jirtay in ay caano u siiyaan ilmaheeda. sheekada haweeneydan ayaa ku baahday dalka Vietnam maadaama ay tahay sheeko marla arag ah oo ka dhacday gudaha dalka Vietnam.